kaala maanta fiidiyowgan yuusan ku dhaafin, ka faa'iideyso. haddii aa hore ugu wareertay in aa youtuberada ku aragtay saxan ama digsi qurux badan oo cunto ah oo lasoo hagaajiyey, kaala iyadoo nolosha dhabta ah ama nolosha runta ah ama wixii markaa aa haysato aad digsi qurux badan ama saxan qurux badan oo familkaaga oo dhan ku filan sida aa u samaysan laheeday. ka faa'iideysi wanaagsan aan ku leeyahay, kusoo dhawow insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa Cafiifa iyo mar kale janalkeena Cafiifa Channel. kusoo dhawaada dhammaan inta igu soo biiri doonto dhammaantiin soo dhawaada. inta igu cusub janalka subscribe dhahda, gambaleelka furta hore u gala insha allah. fiidiyoyaasha kale soo daawada, waxyaalo badan oo ka faa'iidana ka heli doontaan. fiidiyowgeena maanta waa cuntooyin hore aan soo geliyay. kana maanta magac bixintiisa waxa waaye nolosha dhabta ah, uguna macquulsan, uguna fudud, howl ahaana u fudud, qarash ahaan u fudud, cunto qurux badanna ah. laakiin qaabka loo karinayo haddii aa wax ka bedesho markaasay kuu noqonaysaa cunto dhadhankeeda ama eesha u roon intaba. marka ka faa'iideysi waxaan idin leeyahay. intaasna waxay ka kooban tahay baasta makaroni, kalluunka daasadaha ku jiro, yaanyo, basal iyo barbarooni iyo toon. yaanyadaasoo 4 xabo ah, toonadaasoo ah 1 daasad ama 2. adi markaa waxaa haysatid aa ka dhigan kartaa in yaroo ah kamid ah. 4 xabo yaanyo, 4 xabo baradho ah, jab basal ah, jab barbarooni ah, sida nolosha caadiga oo isla naqaanay. intaas ayada dhanba ka kooban tahay insha allah. kusoo dhawaada idin leeyahay, ka faa'iideysi wacan. dadka aad u isticmaalana waxay u badan yihiin waliba dadkeena Soomaaliya jooga oo ayagana dusha uga darsado ayagoo heli karana kalluunkii freshka ahay. laga yaabay howl fudeed camal inay iskaga soo qaadanayaan, laakiin haddii aad sameynaysiin sidaan u sameeyaa idin leeyahay. sidaana idinkagana fudud, idinkagana barako badan, idinkana dhadhan iyo meel walba ku fiican. marka faa'iideysi waxaan idin leeyahay. share dhaha fiidiyowga iyo like ha ka hilmaamin insha allah. ka faa'iideysi wanaagsan. intii hore u taqaano way taqaana, laakiin intii aan aqoonin ka faa'iideysi waxaan idin leeyahay. waatan marka hawsheen meeshaan ka bilaabanaysaa. waa yaanyadii iyo barbarooni iyo basal ku jirto meeshaas. waxyaalaan isku karinayaa sida hadda arkaysiin dabka ay saaran tahay. marka hadda waan soo shiiday, haddana waxyaalaan soo shiiday ka dambaan kusoo dardarayaa cusbadii iyo hashaata cusbada ahaan loo isticmaalo oo isku darsan. iyo waxaan kusoo darayaa huruuda idan kusoo dardano. taas waa huruud aan ku daraaya hadda. waxaa ka horeeya waa in xawaajidan isku dardarka ah oo cusbo ahaan loo isticmaalo. cusbana waa ku darsan kartaa haddaad doonto. barbarooniga oo budada ah oo shiidan waa taasna. waxa aan ku dari doonaba waa 3daas. waxyaalo kale oo ku bedelan kartaa oo ku daran kartaa waxa aad markaa haysatid insha allah, kuuna fudud. hata hadda isku kareen intooda waqti badan uma baahno. marka haddana waxaan kusoo dari doonaa biyaan kusoo daraaya insha allah. marka biyaan ku daraaya, biyahana kama badinaay. ani kiilaan ku kari rabaa baastada. alaabta aan soo sheegano in kiilay barna lagu karsan karaa. qofka nus kiilo karsanayana 1 daasada ku filan. ugu dambeynta sida idin soo sheego lagu dari doono. marka hadda biyo ii soo karay. baastada markuu soo dari doonaa. baastada waa taasa, waa in kiilo baasta ah. meeshaan waxaan ku dari rabaa ayadana in baradhadan waxay rabaa inaan ku daro. baradhadan waa taas aan beertayda le aan kasoo guri doono. sida aragtaanba xilliyada hadda kuleelahoo kale wax yar guriga dhinaciisa iskaga abuurtaa. waa taa hadda iyadana wax yaraan kasoo qaadanayaa. markaan baastada ku shubayaan iyadana ku shubi doonaa. marka baastada hadda ku shubay. cusbadii iyo waxa dhan horey u qabaan. markaasaan isku daro aan ku daraa baradhada. waa taa idin soo dhaqo soo nadiifiyey. marka baradhada iyo baastada isku maray karaan, uma baahno karis badan. haddii marka hore lagu daro way ku dhex baabi'aysaa ama digsiga basalka uga dhigaysaa way ku dhibaysaa.
laakiin baastada haddii lagula shubo ayada isla karayaan markaasi furfuro qurux badan ay noqonayaan. marka haddaan soo daboolay waxyar ka damar inaa saa qaadada u dhex mari sidaa fiican dabkana amar haddii ay iyadoo karays ku darta u gaabsatid. marka mar walbana kusoo noqotid oo qaadada saa u dhex marisid. kalluunkana waa kaasaa markay soo diyaar garoobeysaa kor loogu daraaya. haddii marka hore lagu bilaabo meeshaas ku dhex baaba'ayaa xataa ma laga dareemaya in lagu daray. taay waxa yar aan ku darayna waa spinach aan ku daraayay asagoo wax yar oo fresh ah. uma baahna haddii aadan markaas haysan, haddaa haysatana waa ku darsan kartaa. asagana sidoo kale sidii kalluunka sidaas aan kor uga daray, kuma bilaabin kumana soo karinayay. marka saas oo kale yeeli kartiin qofka raba inuu ku darsado, haddii kalena ma u baahninba wadan markaa haynin. marka muhiimadda waa la cunaa noocan baastada iyo kalluunka, laakiin in la kala kariyo oo meeshaasna hawl badan ay taalo. maanta dhan suugadi iyo asiga la kala wadoodo gasic la furo lagu kordhiraayaan arkay. marka anigana sidaana isticmaalaa uga faa'iideeyaan isir. marka walaalaha ayagana inta taqaan way taqaan, inta aqoonin si uga faa'iideystaan. insha Allah waa kaan biyo yar uu leeyahay weli baastada waxba u dhiman. marka intaas asagana kula soo huuraya kalluunka. hataa inaan shiishid kuma darin ani markaan hadda inaan shiishid uma haynin. intaasaan ku daray. waxaa kaloo idinka iloo toonaan ku daray. haddii aad markaa haysato kaloo ku darsan kartaa kabsar iyo waxyaalahaas kuu sii carfinayo. haddii aadan haynin inta kuugu fududba markaas. marka haddii aad saxaan lasoo qurxiyo lasoo hagaajiyo aad YouTube lay ku arki jirteen, waa kan asagaba qurux badan, hawshiisana fududahay. hal daasad kalluun ama 2 daasad kiilo baasta ah, 4 xabo yaanyo ah, haaf barbarooni ah, 2 toon. intaasoo markaas qado qurux badan ama casho qurux badan uga soo dhigan kartaa. 4 xabo baradho haddii aad markaas ku darsatid oo haysatid. marka nolosha sideedaba ma cusla mana adko, in dadka isku adkeeyaan ma ahnin, ma dhibaatadaas ma jirto. ilaahayna inta aan haysanin ha siiyo, inta haysatan ilaahay u siyaadiyo. marka hadda diyaaray soo noqotay saasay markuu soo hagaagtay. hadda waa taas in kalluun lagu daray in ay wixii dhan isku kareen dhadhan fiican yeelanayaan. maanta in la kala wadoodo ama yaayadii oo dalac bilaash oo gooni loo wado, toonta baashi in laga daba wado, in kalluunkii saana ka howl fudud hal mar la isku kariyo, hal marna saa familka ku deeqayso. insha Allah haddii bisinka loo qabto waa ka hadda iyadoo diyaar ah. saxankaas kusoo guray in yar afkaaga liinta basbaaska adoo soo tumatay. hadda basbaaskaas ma tunno, saxanka idinku soo qurxiyay qofka rabana wuu ku cuni karaa. marka insha Allah fiidiyowga sidaas kusoo dhamaaday. ka faa'iideysi wacan sidaan laga war doono. sheerta iyo like-tana ha ka hilmaamina. insha Allah ka faa'iideysi wacan ayaa idin leeyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.